kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kaste oo aad dunida ka joogta waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa degmada Madan oo la tilmaamayo in 120 in ka badan oo canfar lagu xasuuqay taasi oo ah canfartii ku soo duushay deegaanka gobolka City ciidamada federal booliska ee dalkaasi Ethiopia ayaa baaritaano xooggan waxay ka wadaan magaalada Addis Ababa taasi oo la tilmaamay in lagu soo qabqabtay rag fara badan oo laga shaqaysan yahay shabakadii isku xidhnayd ee lagu qabtay hubka ayaa la tilmaamaya inay ka dambeeyeen saraakiil sarsare oo ku nool wadanka dibadiisa iyo qorshaha ay ka dabacsanayeen oo ay fashilisay dawladda federaalka ee dalkaasi Ethiopia bakala ayaa inoo raaci doono oo dalkaasi Ethiopia ku saabsan in dhawaalaba dagaal xooggan uu ka socday galbeedka gobolka City taasi oo la tilmaamayo in ciidamadii canfarta ee soo duulay dhibaatada ka waday galbeedka City in shaqo qaran ay ka qabteen ciidamada liyo booliska ee gaarka hadaba arintan ayaa wax ka weydiinay shide oo inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee galbeedka City maxaa ugu dambeeyay ee shido ragooda aad iyo aad baad u mahadsantahay sida aan wada ogsoonahay galbeedka City waxa ka socday waayadii ugu dambeysay dagaal aad u culus oo u dhaxeeyay labada qowmiyadood waa Soomaalida iyo Canfarta iyadoo labada ciidan ee deegaanka Soomaalida iyo Canfartu ay waayadii ugu dambeysay dagaal xooggan ay ku dhaxmarayeen galbeedka City ee dawladda deegaanka Soomaalida ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida waxa u suurta gashay in dhulkii ugu ballaarnaa ay ka xoreeyeen sida muuqaalada ay warbaahintu ay soo qaadanaysay ama waraysi ay warbaahintu la yeelanaysa saraakiisha furinta hore dagaalka ku sugan hase yeeshee waxa xusid mudan dagaalka hadda u dambeeyay oo ka dhacay magaalada Madane halkaasi inay Canfartu ay kala kulantay jab aad u culus Soomaaliduna ay si weyn ugu diirsatay ayadoo halkaasi meydadka ay kaga carareen maleeshiyaadka Canfartu la sheegay inay 120 ay kor u gaareen halkaana la sheegay inay saraakiil aad u tiro badan oo warbaahinta loo soo bandhigay hase yeeshee gobolka Canfarta laga dareemay sida warbaahinta Canfartu ay qorayso inuu halkaasi ka dhacay ayadoo dagaalkaasi la sheegay inuu ahaa dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee saacado kooban ay Canfartu ay ku halaagsantay halkaana uu noqday dagaal lama filaan ah ayadoo sida wada ogsoonahay gobolkaasi ay ka socdaan dhaqaaqyo dagaal oo aad u ballaaran wajiyo badan hase yeeshee ugaaska guud ee gobolkaasi iyo siyaasiyiinta iyo dhaqameedka iyo ganacsatada ayaa guud ahaan si weyn ay uga qayb qaadanayaan sidii dagaalkaasi ugu guuleysan lahaa ama gabi ahaanba xuduudda dawladda deegaanka Soomaalida loo soo xiri lahaa Canfartuna ayna mar kale ayna isku dayin ama ayna ku dhiirin inuu dagaalkaasi uu dib u soo loomo ama Canfarta fursad kale loo siiyo inay ka dagaalamaan galbeedka City ama markale ay deegaanada qabsan ayadoo muuqaalo ay soo duubeen oday dhaqameed furinta hore tagay ay sheegeen deegaana ayna muddo badan ayna dadkaasi ayna rajo ka qabin oo lagu xasuuqay dad rayidoo aad u tiro badan ganacsato iyo caruur iyo dumar badan halkaasi ay qabto ay Canfartu ay ku leysay inay maanta xor yihiin ayadoo dhulkuna uu yahay dhul roobeed oo roobku aad u daayo wadooyinku intooda badan ay xidhan ayada haddana moodaa ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida inay marba marka ka dambaysa ay ka sameynayaan dagaalkaasi horumar aad u ballaaran sidoo kale waxay hayaan Soomaalidu maxaabiis aad u tiro badan oo Canfartu oo ay leedahay ayadoo warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida ay sii deyn doonto maalmaha soo socda gulaha hordhacay laga gaaray dagaalkaasi aad iyo aad baad u mahadsantahay shidow daawadayaal barnaamijkeeni ayaan bartanka kaga jiray aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijkeeni faaqidaad ayaan bartanka kaga jiray waxa jiray warkeeni hore sida aan ku tabinay golaha amniga qaranka ee dalkaasi Ethiopia ayaa maalintii shalay waxay baahiyeen shabakad isku xidhan kuwaasi oo doonayay dilal iyo waliba qorshayaal inay ka geystaan dalkaasi Ethiopia hadaba cidii ka dambeysay iyo cidda loo socday ayaan wax ka weydiinay taasoo xog fara badan ay ka soo korodhay 12 saac ugu dambeysay hadaba bidhaan oo la socday ayaan wax ka weydiinay bidhaanow waataan tabinay ee hadda maxaa ka soo cusboonaaday xogtii hore ee shabakadii waa la qabtay baa noogu dambeysay xogta maalimadii shalay markii aan sii deeyay dhacday ahayd waa markii uu dhacay muxuu kiiska nimanka lagu soo oogay waxa soo baxday qaar kamid ah raggii shabakadan isku xirnaa oo la qabtay ayaa waxa ay sheegeen ujeedada ka dambeysay in mataqaanaa hubka intan la eg ay Ethiopia gudaheeda ay soo galiyaan iyo wixii laga lahaa waxa ay sheegeen hubkan inay soo abaabulaan ama ay wadanka soo galiyeen axmaarada xagjirka ah
kuwaasi oo doonayay inay ku beegsadaan waa kuwa wadaadada oo dhakiska weeye iyagoo doonaya ku beegsadaan wadaadada oromada mataqaanaa siyaasiyiintooda wariyaashooda fanaaniintooda inay ku beegsadaan isla markaana ay tusiyaan cadowtinimo abiy axmed iyo mataqaanaa oromadu in mataqaanaa kala dhex dhigo in la sameeyo iyadana oromada iyo tigreega iyaga in la isku diro marka halkaas mataqaanaa kaga faa'iideysanayo ay rabeen inay isku dir noocaas ah inay sameeyaan raggan waxaa laga soo aawulay dalka dibadiisa laakiin gudaha ayaa la keenay meelo badan oo xitaa ukaxmada ka midana waa la geeyey laakiin hadgadashay mataqaanaa taas ahayd ujeedada ugu weyn waxay ahayd un wadaadadan sidii mataqaanaa ay saldanadoodii ay ku sii haysan lahaayeen etoobiyadaas weyn si ay ku xukumi lahaayeen inay mataqaanaa ay sameeyaan marka waxaa ka bilowday etoobiya urur argagixisa ah waxaa dhihi karaa dhanka wadaadada qaybta iyada ah maadaama iyaga laftooda ay wanjalayaan nimankii ahaa badhano ma laga yaabaa iyaga laftooda ay ku xisaabtamayaan waxaa jira step 1 iyo step 2 iyo step 3 hadduu kan ka fashilmay ma laga yaabaa step 2 inay u gudbaan oo qaybihii labaad oo dambeeyna laga yaabo isku dayayaan laakiin de mar haddii qofka duu fashilmo way adag tahay waxay kala mataqaanaa sidii gooniga lagu haynaya marka taas marka waxay keenaysaa ama ay hanjabisay qabkoodii ahaa in mataqaanaa ay sameyn karaan Itoobiya xeraa ka sameyn karaan meesha uu ka baabay uu ka baxay awal waxay doonayeen isku dir qowmiyadeed in ay sameeyaan si ay u dhahaan Itoobiya marka anaga maamuleynay ama ay noo joogtay waxa kama jirin waa kala bixisay dadka kama jirin laakiin maanta waxa noo mataqaanaa taagan waa kan la beegsanay mataqaanaa madaxdii waa kan la dilay siyaasiyiintii fanaaniintii marka isku dir qowmiyadeed bay ka rabeen laakiin wixii isaga waa la soo afjaray haddana mataqaanaa weli waxyaalo kale oo fara badan oo gudaha dalka ku jiro yaa baaritaanada lagu wado aad iyo aad baad u mahadsan tahay bidhaanow daawadayaal magaalada muqdishona waxaa ka furmay shir ballaadhan oo ay isugu yimaadeen wadamada safka hore iyo weliba dowladaha taageera sida la tilmaamaya dowladda federaalk ee soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la sheegaya in howlgalka qaybtiisa labaad uu ka bilaaban doono jubbooyinka iyo weliba koonfur galbeed Soomaaliya taasi oo ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore haddaba si loo soo dedejiyo ayuu shirkani ku saabsan yahay ciidamadii ka qayb qaadan lahaa dagaaladaasi haddaba waxaan wax ka weydiinay gooniyo shirkani muxuu ah shirkani wuxuu daba socdaa shirkii markii hore ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu heshiiyey in dalalka safka hore ay ciidamo keenaan Ethiopia ayaa ka soo jawaabtay si degdeg ah iyadoo ciidamo ka soo dejisay Doolow iyo deegaanada ku dhow weliba ilaa ay Baardheer gaarsiisay ciidamada waxaana leeyahay waxay diyaar u yihiin dagaalka safka ka qayb qaataan shabaabka lagu qaadi doono dhawaan marka waxaa shirkan ka socda magaalada muqdisho waxaan lagu taxliilinayaa sababta in ciidamada kale ay u maqan yihiin kuwa Kenya iyo kuwa Djibouti si degdeg in loo keeno ciidamada ayaa la jeenaa dagaalka shabaabna lagu qaadi doono saf balaan asagoo ah maalmaha soo socda la soo gabagabeyn doono dagaalka shabaab lagu jiro marka arrintaas ay ka arinsanayaan waxaan leeyahay dagaalka muhiimadiisa Ethiopia ayaa qaadayso laakiin ciidamadan la yiraahdo Kenya iyo nimanka la yiraahdo Djibouti waa in lagu darayaa oo wax yar ayaa lagu soo darayaa laakiin awoodda iyo dagaalka iyo howlgelinta waxa iskale ciidamada Ethiopia oo arki doona farqada wax ku soo kordho shirkaas ay wuxuu ku socdaa magaalada muqdisho waxa kale jirta magaalada muqdisho waxa lagu qabtay in shabaab ah oo macnaha meena uu ku xiray gaari nin maxalli mas'uul ah oo leeyahay waliba ka tirsan booliska Soomaaliya isagana ciidamada dowladda ayaa gacanta ku soo dhigay inkastoo gaari uu qarxay ayadoo ciidamada soo gaarin ninkana asagoo baxsan raba ay qabteen laguna xiray salagida magaalada muqdisho isagana baaritaan ayaa ku socdo ninka Afrika aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyow daawadayaal waxay noo soo socdaa qodob ku saabsan ciidamada federaal booliska ee dalkaasi Ethiopia ayaa waxay baaritaan xoogan ka wadaan magaalada Addis Ababa Baxardaar iyo weliba magaalada Dirdhabo qodobkaani waan isdul taagi doonaa balse marka hore wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Allah u naxariistay Ismaaciil Hurre Buuba ayaa geeriyooday taasi oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba ay jacayso uga direen haddaba arrintan ayaan wax ka weydiinay taariikhdiisa iyo weliba xilalkii uu ka soo qabtay jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyo markii uu dambe siyaasadda siduu uga xoogsiibtay haddaba maxaa ugu dambeeyay ninkan geeriyooday wuxuu ahaa midnimada Soomaaliyeed jecel bal warkiisa nasiib إن لله وإنا إليه راجعون وحادوان دلك تركيا كوكو وزير كوري أرمها دولة سوماليا إسماعيل هرة بوبا دل معي مالهي لصور دعفي أيا وحا للشيغي وحاوصلان سياسية إسماعيل هرة بوبا دل معي بس هو دنبين مانتا أي كيسي أي نقطيسة مركا كوكو دلك تركيا سيدا أي حقيقية مسؤولين سلطان دولة إمام سومالي لان دولة سوماليا
الله محرسة إسماعيل كروبا وحا وصول رئيسal wasaare ku-xigeenkii dalka waxaa kaloo soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan ururka SNM 1991 ama 1991 waxaa kaloo uu noqday wasiirkii ugu horeeyay ee maaliyadda Somaliland isagoo waliba ah aqoon-yahan haysta shahaadada PhD-ga mas'uuliyiin ka tirsan